madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaadanaya wakiilada beesha caalamka si ay ugala hadlaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee gobolka. wuxuu safar ku tagayaa maanta madaxweyne Axmed Maxamed Islaam caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, halkaas oo uu kula kulmayo safiiro ka socda beesha caalamka si ay uga wada hadlaan arrimaha la xiriira siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan xiisadaha u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka iyo mashaariicda horumarineed ee gobolka ka socda. kulamada noocan ah ee ay yeelanayaan madaxda beesha caalamka iyo madaxweyne Axmed ayaa muujinaya dadaalka Axmed Islaam uu ugu jiro in uu xiriir dhow la yeesho beesha caalamka si loo xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, loona horumariyo ammaanka iyo horumarka Jubbaland. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayay ka go'an tahay sidii uu bulshada uu matalo ugu soo hagi lahaa hufnaan iyo cadaalad. si lamida waxaa ka go'an sidii uu cirdigooda iyo sharaftooda u difaaci lahaa jiritaanka dhuleed iyo mid qadiyadeed ee Jubbaland. Shirmarka Mahdi Cabdi, Wama TV.